الرحيم cashirkan maanta waxaan ku baranaynaa recovery. Recovery-ga muxuu yahay? Recovery-ga waxaa waaye waa qaab ama maaragtay system loogu talagalay in Microsoft ku talagashay haddii faylasha qaar oo kale corrupted ay kaa noqdaan aysan kuu shaqaynaynin oo kale ama computerka cillad ay ku imaato oo kale oo xagga software-ka ah inaa maaragtay recovery ku samaysid oo kale. So marka faylasha ayaa kuu saxmaayo oo markii aad maaragtay faylashii haddii corrupted ay noqdeen oo kale ama faylashii ay dhibaato ay gaareen oo kale waxaa samayn kartaa in maaragtay laba siyaaboodba in maaragtay faylasha ii keep garay aad tiraahdid wixii faylasha ii sax inaad dhahdo ama full recovery ii samee inaad dhahdo oo kale oo maaragtay wax walbo inuu kaa tirtiro faylasha kugu jira xataa aad lose garay karto oo maaragtay aad lumi karto oo kale ayay maaragtay ay noqonaysaa. So marka labada qaybood qaybna waa faylashii inaad keep garayso oo maaragtay waxaagii documentkaagii sawiradaadii iyo maaragtay waxyaabihii markaas muhiimka ku ah documentiyada ay maaragtay ay kugu jiraan oo uu kuu sameeyo maaragtay recovery uu kuu sameeyo in maaragtay aad tiraahdo maaragtay cillad weyn hadday ku haysato oo kale inaa maaragtay aad everything delete aad dhahdo oo kale oo maaragtay computerka sida markuu uu cusbaayo oo kale ahaa iga dhig inaad brand new computer camal iga dhig inaad dhahdo oo kale. So marka qaabkee loo sameeyaa waxaan tegaynaa start ayaan tegaynaa settings ayaan tegaynaa waxaan tegaynaa update and security markaan tagno waxaan tegaynaa recovery qaybtan oo bidixdaada ah meesha ay ku qoran tahay recovery-ga troubleshooting ma ahan waa recovery waxay u dhexaysaa troubleshoot iyo waxay u dhexaysaa activation-ka labadaas ay u dhexaysaa recovery-ga click ayaa ku siinaysaa. So marka click ku siiso laba qayboodba maaragtay waa u samayn kartaa get start oo midkaan aan recovery-ga reset this PC reset garay if your PC isn't running well haddii uu maaragtay computerkaaga shaqaynayn si fiican u shaqaynaynin reset it might help maaragtay waxaa laga yaabaa in resetkan uu ku caawiyo. Let's choose whether you keep a personal files waxay ku leeyihiin marka waxaad dooran kartaa in maaragtay faylashaadii ay maaragtay ay sidoodii ku ahaayeen documentiyadaadii muhiim ku ahaa or maaragtay remove them and then maaragtay reinstall inaad samaysid oo kale in maaragtay documentiyadii aad kala baxdo oo USB ama external hard drive oo kale inaad haysato oo kale aad faylashii inta ka koobiyeysato oo meel banaanka ah PC aad dhigato kadib aad maaragtay markii aad recovery all ku samayso inaad maaragtay restore ku samayso kusoo celiso faylashaadii iyo in faylashii lagu keep garay labadaas qayb waa samayn kartaa. So marka get start ayaa leedahay get start markaa dhahdo two option ayuu ku siinaya optionka koowaad waxaa waa keep my files faylasheeda ii keep garay oo maaragtay documentiyada iyadoo iigu jiraan maaragtay ii recover garay ayaa samayn kartaa iyo waxaa dhigi kartaa remove everything remove all your personal files and apps wax dhan ayuu maaragtay settingski wax dhan ayuu maaragtay iyu tirtirayaa kadib ayuu wuxuu ku sameynayaa sida brand new computer camal ayuu kaa dhig marka labada option mid ka rabta ayaa dooran kartaa. So marka koowaad haddaad rabto inaad dooratid wuxuu ku leeyahay this wouldn't take long ayuu ku leeyahay marka wuu wadaaya. So marka wuxuu ku leeyahay laba qayb oo samayn karta cloud download waa samayn kartaa oo maaragtay installation iyo local installation inaad samayso kale labadaba waa samayn kartaa. Cloudka waxaa waaye in Microsoft Windows-kooda aad maaragtay aad ku xiranto cloud-kooda aad ku xiranto serveryaashooda maaragtay markaas aad kasoo dejiso iyo local server Windows-ka oo maaragtay computerkaaga uu leeyahay in maaragtay aad kasoo dejiso labadaba waa samayn kartaa. So marka haddii aan doorano kale waxaa leedahay cloudka oo rabto kale waxaa leedahay download ayaa leedahay local restore-ka haddaad rabtidna waxaa samayn kartaa inaad maaragtay localka aad ka doorato. So marka cloud download can be more than 4 GB data wuxuu ku leeyahay cloudka wuxuu u baahan yahay more than 4 gigabyte oo maaragtay oo data ah ayuu u baahan yahay. So marka midka rabta ayaa dooranaysaa back ayaan dhahaynaa tanna waa remove everything ayaa leedahay haddaad rabto maaragtay isaga naftiisa sidoo kale waxaa leedahay cloud download ayaa samayn kartaa iyo local. Marka hadda inaan ma sameynayo because hadda sameeyo oo maaragtay adiga hadda click haddaad ku sameyso wuu kuu sameynaya midka rabta ayaa dooranaysaa kadib wuu kuu maaragtay download wuxuu ku sameynaya recovery ayuu ku sameynaya. So marka labadaas qayb ayaa loo sameeyaa recovery-ga haddii maaragtay computerka cillad ama software xaggeeda ay ku haysato kale marka labadaas qayb waa la samayn karaa saas ayaa loo sameeyaa recovery-ga. Casharkeena maanta intaas ayaan kusoo koobaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.